السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan filaa dhammaantiin inaad wada fiicantihiin muuqaalkan wuxuu ku socdaa qof walba oo doonaya inuu barto dropshippingka run ahaantii markaad fiirso tiktok oo kaleeto waxaa jira muuqaalo badan oo maaragtay dhalinyaro oo mise dad soo dhigaayo shopify dashboardkooda ku leeyihiin bishan waxaa sameyn intaasoo kun oo dollar marka adina waxaa laga yaabaa in hunguriga lagaa soo riday oo maaragtay asdhaada bal dropshippingkan muxuu ahaa qaab noocoo u shaqeeya laakiin muuqaalkan waxaan rabaa inaan kugu tuso waxa saxda ah yacni wejiga saxda ee dropshippingka waxyaabaha saxda ee meesha ka jiro marka laga soo tago maaragtay waxyaabaha bebeenta meelaha ku aragtay run ahaantii badanaa dhalinyarta kutusaayo maaragtay shopify dashboardkooda kule intaasan sameynay waxay u badan yihiin inay been sheegayaan ulajeedkoodana wuxuu yahay inay korso ka iibiyaan soo muuqaalka aniga ulajeedkii maaha inaan korso ka iibiyo run ahaantii dhowrka bilood lasoo dhaafay waxaan sameynaya dropshippingka iyo e-commerceka waxaan isleeyahay waxa hawa aan ka hadli karo oo aan maaragtay macluumaad fiican u leeyahay marka muuqaalka waxaan ka hadli doonaa waxyaabo badan sida maaragtay dropshippingka marka koowaad ma xalaal baa mise waa xaaraan waxaa kaloo ka hadli doonaa haddaa joogto Africa Shopify payment gateway noocee isticmaali kartaa mid saddexaad aan ka hadli doona waxay tahay arrimaha la xiriiro canshuurta midda afraad waxay tahay copyrightka in maaragtay isticmaashay dadka kaleeto sawiraantooda iyo muuqaaladooda waxyaabo noocaas kaleeta midda afraad waxay tahay mise midda shanaad waxay tahay in aan ka hadlo sida ku heli karto supplier wanaagsan sidoo kaleeto inaan ka hadlo su-aasha ugu weyn oo meesha taalo oo ah dropshipping ma ku bilaabi karaa lacag la-aan mise wuxuu iga baahan yahay inaan lacag sameeyo oo aan lacag geliyo marka su-aalahaas dhan ayaan ka jawaabi doonaa insha allah kusoo dhawaada muuqaalkan su-aasha ugu weyn uguna muhiimsan waxay tahay horta dropshippingku ma xalaal baa mise waa xaaraan run ahaantii su-aashan waxaa waaye culummadu way isku haystaan maaragtay wax markii la isku haystaan waxaa wanaagsan inaad iskaga tagtid marka waxaa inaan ku fahamsiiye marka hore xoogaa bal horta waxa xaaraanta ka dhigaayo waxa xaaraanta ka dhigaayo waxay tahay in shay aad iibiso adigoonan haynin aadna iska dhigayso inaad hayso waana ku dhaw shaygan waa hayaa aan maaragtay ku tuso sawiraantiisa aan ku tuso lacagtaan ku iibinayo haddana aanan haynin taas waxay noqonaysaa khiyaano maaragtay marka taas waxaan rabaa inaan bal xal u keeno oo aan ku tuso sida maaragtay xaaraantaas oga bixin kartid oo xalaal oga dhigi kartid jawaabtuna waxay tahay waxaa sameynaysaa storekaaga ayaa waxaa ku dhex sameynaysaa pagekaas oo maaragtay disclaimer page ah oo aad ku sheegayso aad ku caddaynayso in qofka hadduu soo galo uu arkaayo aad ku dhehayso war anigu alaabtan ma hayo physically laakiin qof maaragtay supplier ayaan la shaqaynayaa waa alaab aan xaqiijiyey qualitygeeda waa alaab aan maaragtay damaynad qaaday oo haddii maaragtay alaabtii ay halaawdo kaleeto ay dhuntoo kaleeto returnska refunds waxyaabahaas la qofka inuu alaabta kasoo dacwado alaabta waa halasanta ay keentay mise alaabta ay soo dirtay ma arkin baniyo location khaldan ayaa ku dirtay waxyaabahaas kaleeto inaad maaragtay aad wada khasaar qaybsan kartaan qofkii supplierka ahaa marka haddii aad responsibilitygaas aad qaadayso oo aad damaanad qaadayso waxaas sidoo kaleetana aad samaynayso quality check haddana kaleeto mar walbo markaan product iibinayo waxaan jecelahay inaan marka hore sample ahaan hal xabo aan ka soo qaato supplierka locationkayga ugu soo diro si alaabta markay ii imaato bal aan u arkaniyo waxaan arta wax quality le miya ileen wax fiican miya wax miya haddii oo dhib beri kaaga imaan karo sababtoo hadhow haddii aad maaragtay wax khaldan aad iibisid hadhow gadaal waxaa kaa imaanayso maaragtay returns badan chargebacks badan sorry dhibaato badan dad badanaa ku dhahay waxaan naga celi ma rabnee marka waxaa loo baahay mar walba inaad quality check aad samaysid kadibna dhigi karto alaabta alaab wanaagsan ay og tahay supplier fiican waaye waqti fiican ayuu wax keenayaa inaad supplierka fiirsid inta waqti uu ku keenayo ma jiro qof raba inuu sugo maaragtay bil inuu sugo alaab inuu imaato waxaa la rabaa in maaragtay waqti gaaban gudaheeda ku keen karo marka su-aasha ahayd wax aadan haynin ayaa iibisay oo dhahda anaa haayo waxaa ku xalin kartaa maaragtay inaad dhahdid inaad qofka u hagaajisid page oo aad dhehaysid niyo waxaan ima haayay keliya waxaan la shaqeynaya supplierkaas alaabta haayo midda labaad oo aan isleeyahay way xaaraantimeyn kartaa business modelka dropshippingka waxay tahay in alaab aad iibiso waqtiga qofka uu helaa aadan garanayn yacni anaga wax kaa iibiyo waaye waqtiga ay iga filan lahayd inaan helaayana aadan garanayn lacag ay qaatay haddana waqtiga maaragtay alaabteeda ay siinaysid ma garanaysa adi hataa anina ma garanaya marka taas xoogaa khiyaano iyadana way noqonaysaa taasna waxaa xalkeeda ah in horta maanta la joogo dropshipping sidii waa hore maaha waa hore waxaa laga yaabaa in alaab aad sugto bil 2 bilood hadda laakiin guddigood supplierada dhan China AliExpress dhammaantood way ilbaxeen sidoo kale waxaa soo baxeen third party suppliers dad waxaa soo baxay la shaqeynaya supplierka China jooga waxay sameynayaan marka alaabta ay ka soo qaadayaan warehouse ay ku leeyihiin maaragtay Mareykanka warehouse ka ay alaabta keenayaan waxaa laga yaabaa alaab dropshipping ah oo qofka ku qaadanaysa maaragtay 3 maalin gudaheed in maaragtay
loo geeyo hadduu maraykanka joogo kaleeto sababtoo ah alaabta waa la fududeeyey oo warehouse ayaa laga dhex sameeyey maraykanka taasna meesha waxay ka saaraysaa midii ahayd alaabteeda goormee helaya yacni waqti ma ii sheegi kartaa helayo marka waxaan ku dhihi lahaa labada midba waxay sameynayaan inay fududeeyaan job shippingka waxaan isleeyahay inay xalaal ka dhigayaan job shipping businesska run ahaantii ani sheekh mihi laakiin markaan ku sameeyey researchka labadaas dhibaatooyin labadaas xal ayaan u helay taasna waxaan isleeyahay inay maaragtay meesha ka saarayso wax dhibaato ah qodobka labaad iyadana waxay tahay Shopify payment gateway nooc ayaad isticmaali kartaa marka aad joogto Africa run ahaantii marka aad joogto Africa dhibaatada ugu weyn qofka haysto waxay tahay qaabku lacagta qofka uga qaadi lahaa iyo qaabka aad ku qaadan lahayd sala kaleeto waxaa jirto Shopify payment jirto mid caadi ah waxaa jirto maaragtay Stripe ayaa jiro dhammaantoodna Africa ma ogolo oo Africa kama furin kartid marka optionka koowaad waxay tahay in horta qof maraykanka joogo ama dalkaas hore joogo inaad la hadashid oo dhahdid niho ii samee maadaama aad ku jirto testing stage wax la dhaho testing stage waxay tahay marka aad maaragtay ku cusub tahay businesska ama product cusub aad tijaabinaysid ma ogid product inuu shaqeynayo inuu shaqeyn doono iyo in kaleeto soo qofka marka la hadashid waxa leedahay niho alaabtan ii maaragtay Stripe ii fur bangiga igu xir addresska igu xir social security numberka igu xir haddii uu shaqeeyo uu maaragtay oo noqoto wax consistent sales as sameynaysid kadib qofkaas waxa wanaagsan inaad ka guurtid oo aad furutid wax la dhaho LLC maxaa waay marka LLC waxa waa inaad register gareysid businesskaaga waxaad ka dhex register gareyn kartaa maraykanka waxaa jirta qaab loo register gareeyo LLC kaliya hadda YouTube ka fiirisid how to register LLC in US waxaad arkaysaa qaab company oo uga dhex furan kartid US waxaad dooranaysaa maaragtay state-ka aad rabtid state waxaa jiro maaragtay sanadkii lacag laga qaadin zero revenue maaragtay tax revenue laga qaaday sanadkii waxaa ka mid ah New Mexico marka muuqaal ka hadlayo sida maaragtay loo furto LLC US ayaan soo dhigi doonaa description-ka hadaa muuqaalka daawatidna waxaa baran doontaa sida loo sameeyo kaliya waxa u baahan tahay lacag la gaarayso adiga 360 meelahaas $400 inaad maaragtay ku furtid LLC wax walba ay ku sameynayaan business address ay ku sameeyaan wax walba ay ku sameeyaan qolo ka saacideynaysa waa marka waxaan ku dhahay marka koobaad haddii ay haystid qof ka caawin karo oo maaragtay iskala hadli kartid oo ehelkaaga walaalka ah hadii kartid inuu ii fur waxaan ku tasgaranayaa productkan maalinta aragtid inaad maaragtay sales fiican helaysid oo account-kaaga uu maaragtay mar walba store-kaaga waxyaaba helaysid maaragtay sales badan helaysidna in qofka ka guurtid sababtoo ah qofkii dhibaato u keensan kartaa waxaa dhacaysa in lacagta bangigiisa soo marto markay bangigiisa soo martana isaga ayaa lagu soo qorayaa taxeska marka dhibaatadaas oo dhan adoo eegayo waxaa fiirin kartaa in haddaad sales sameynaysid LLC furo haddii aad testing stage ku jirtidna qof iskala hadal oo ha ku furo midda saddexaad waxay tahay drop shippingka muxuu u baahan yahay lacag inaan ku bilaabo ama si bilaash ah ayaan ku bilaabi karaa run ahaantii hadduu jiro qof ku dhahayo drop shippingka bilaash ayaa ku bilaabi kartaa qofkaas waa beenaale business walbaba maaragtay wuxuu u baahan yahay inaad maalgashi samaysid ha haata maalgashi lacageed ha haata mid maaragtay maskaxeed mid xirfadeed mid waqtigeed marka mid walba waxaa loo baahan yahay in waqti aad geliso sidoo kale businesska dropshipping wuxuu kaaga baahan yahay kaliya lacag maahan hadda maanta lacag dhan aan ku siiyay aan ku dhaho okay businesska lacagtan ku bilaabo maanta oo aadan aqoonti haynin oo aadan garanayn sida artska loo raan gareeyo oo aadan garanayn sida store-ka loo sameeyo lacag badan ay ka gubanayso sababtoo ah aqoonti ay ka maqan marka waxaa loo baahan yahay in haystid balance-ka ah aqoon inay haystid balance-kii ah lacag oo maaragtay aad jeebkan awood u leedahay sidoo kale tan aad maaragtay xirfadii aad baratid oo artska si loo raan gareeyo aad baratid Facebook artska aad baratid maaragtay website-ka sida loo sameeyo Shopify-ga settings-ka si loo hagaajiyo sida maaragtay creative loo qoro creative waxa waa maaragtay inaad copyright waxyaaba isticmaasho u baahan yahay marka all these skills ay u baahan tahay runaantii si aad maaragtay u hagaajisid successful dropshipping store marka maya bilaash kun bilaawi kartid laakiin markaas u fiirisidna soo gelitaanka hore inaad soo gashid dropshipping way fududahay laakiin inaad gudaha u gashid oo lacag ka samaysid oo aad maaragtay successful ka noqotid waxay u baahan tahay barnaamij kale tahay sababtoo ah inaad furtid waxaan malay maanta Shopify kaliya waxay tahay 3 bilood oo ugu horeyso $1 ka qaadayaan waxa ma ahan wax bilbilaaw lacag ma laha laakiin waxa u baahan markii aad gudaha gashid oo kaleeto ayay maaragtay shaqada weynaanaysa oo hadaartii inaad lacag aad maaragtay aad lacag dhashaa la dhahay si aad traffic u heshid dad meesha inay imaadaan alaabtaada arkaan waxa u baahan tahay inaad dadka keentid ku keen kartaa laba siyaabood waxaa samayn kartaa organic dropshipping oo ah inaad muuqaalada aad duubtid oo alaabta maaragtay guri keensatid muuqaalada aad samaysid muuqaalada aad soo dhigtid TikTok-ga aad soo dhigtid maaragtay Instagram-ka saasna ay maaragtay dadkii alaabta markay muuqaalka ay arkaan ee gudaha u soo galaan bio ku soo dhuftaan linkii kadib alaabta ay arkaan ay iibsadaan meeshaas waxa ka badbaadaysa lacagta ku bixin lahayd xaysiiska
laakiin taas dhibaatada leedahay waxay tahay in meesha aad joogtid ee ku saameynayso kasoo qaado kale ani haddaan dhahno haddaan joogo maaragtay waddan Afrika ah waxaa ugu dhacaysa in marka aan magaalada aan joogo marka muuqaal sameeyo muuqaalkii wuxuu ku faafayaa magaaladan joogo muuqaalkii inuu Mareykanka iska aado oo dad qof Mareykanka joogo la tuso maaragtay algorithm-ka noocaas ma shaqeeyo algorithm mar walba wuxuu sameeyaa muuqaalka wuxuu u faafinayaa dadka magaaladaada joogo dadka maaragtay contactkaaga ku jiro oo telefoonkaaga ku jiro dadka asxaabta tihiin marka taas ayaa dhibka keenayso maaragtay waxaana ka fudud inaad maaragtay paid version aad isticmaashid oo Facebook inaad lacag ku bixisid oo maaragtay aadid muuqaalkayga waxa ay tustaa maaragtay dadka joogo maybe Canada joogo dumar Canada joogo oo u dhaxeeya da'dooda 35 ilaa 65 marka paid ads bixinaysid oo lacag ku bixinaysid maxaa tahay views-ka dhibka waxa ku wanaagsan tahay waxay tahay waxaad dooranaysaa qofka saxda adiga aad rabtid inuu muuqaalkaagii daawado marka run ahaantii taasna lacag ay u baahan tahay Facebook testing badan ay u baahan tahay tijaabin badan ay u baahan tahay pixelka inuu maaragtay shaqeeyo waa sheeko dheer marka businesska dropshipping ah maaragtay bilaash kuma bilaabi kartid aqligalna maahan midda kale oo la rabo inaad ogaato waxay tahay waa khalad ani aan sameeyey markaa cusbaa run ahaantii tan ma fahamsaneen okay waxaa arkay store shaqeynayo waxay iibinayaan alaab dumar ay iibinayeen storekan waxaa ku sameeyey research qaab waxaa jirta storeka ugu samayn karta researchka waad arki kartid maaragtay lacagta uu sameynayo bishii lacagta uu sameynayo maalintii marka arkay storeka inuu yahay store maaragtay lacag fiican sameynayo oo successful ah ayaa waxaan damcay inaa maaragtay koobiyey wax walba ay sameynayaan so store ayaan sameeyey waxay sameynayaan aan sameeyey creative sida u qoran u qoray image-yada ay isticmaalay muuqaalada isticmaalay isbuuc kadib markaan dhowr yar faa'iido ka sameeyey isbuuc kadib waxay soo dhacay maaragtay arin copyright ay soo dhacday oo domainkeygii ayaa maaragtay qaylo galay website-keyga qaylo galay hawadii laga saaraa la damcay sababtoo ah waxaan ilowsanaa in meesha aadan maaragtay qof kale wixiis in iska xado iska qaadato aysan maaragtay munaasab ahayn aysan wanaagsaneyn waxaana kala kulmi kartaa dhibaato aad u weyn run ahaantii dhibaato keli maaha waxaa kala kulmi kartaa xitaa in qofkii uu ku dacweeyey maxkamad ahaan kugu dacweeyo kasoo qaado kartaa in hadda alaabaan maaragtay keenay alaabta markaan keenay waan diiwaan geliyey maaragtay magacaan ka bedelay waan customize gareeyey website-kayaan ku iibinaya adi marka sawiraantii muuqaaladeeda xaday website-kaaga soo gashatay ani waxaa wada inaan adihan ku dacweeyo defamation ay dhahaan inaan ku dacweeyo oo maaragtay maxkamadda kuu dacweeyo baxra ayaa geli kartaaba marka ani keliya waxaa lagu soo qabtay midda copyright-ka ah oo ah yacni sawiraanta inaad isticmaashay marka keliya maaragtay inaad iska ilaalisid waxyaabahaasoo kaleeto in maaragtay sawirada aad isticmaalaysid muuqaalada isticmaalaysid ay noqdaan muuqaalo iyo sawiro ka duwan kuwa competitorska isticmaalayaan muuqaalo iyo sawiro original ah xayay ka heli kartaa waxaa ka heli kartaa run ahaantii qaar waxaa isticmaali kartaa AI badan ayaa jira maanta ku hagaajinaya ku generate garanaya muuqaalo maaragtay oo products hadda u dirsatid sidoo kale waxaa isticmaali kartaa sawiraantii sampleka sawiraantii maaragtay ka soo qaaday AliExpress-ka ama haddii kale waxaa ka qurux badan in alaab hal shay oo sample ah inaad soo dirsatid oo guri aad keensatid kadibna sawiro iyo muuqaalo aad ka qaadid gacantaada uga qaadid kuwaasna aad isticmaashid midda kale oo rabo inaan ka hadlo waxay tahay iyadana canshuurta run ahaantii canshuurtu waa arrin jirto meesha maaragtay ku jirto mar walbaba in maaragtay is-ilowsiisid ma ahan markaad ka dhex shaqeynayso kasoo qaado kaleeto Mareykanka ayaaba alaabka iibinaysa hadda anoo kaleeto marketka ugu weyn aan maaragtay wax ka iibiyo waxay tahay US hataa Europe iyo xamata gadgare kaliya US ayaa ugu filan marka US wax ka iibinayso kaleeto waxaa loo baahan yahay in taxeska ku xirtid Shopify-ga waxaa samayn kartaa in maaragtay state walba wuxuu leeyahay canshuur tax rate ayuu leeyahay kasoo qaado kale California inay tahay laga yaabaa 6% 7% meelo qaar inay yartahay meelo qaar inay badan tahay soo qofkii markuu joogo kaleeto markuu California joogo kaleeto mise state ku raba ha joogo marka canshuurta ku sii xirtid qofkii markuu damco inuu lacagta bixiyo oo website-ka alaabtaada ka iibsado waxaa u soo baxaysa in meel ay ku qoran tahay VAT oo waxaa la lahayaa 7% VAT bixi shaygaas 7% kiisa ayuu lacag ku darayaa adiga qofkii waxaa ka qaaday canshuurtii sida caadiga maanta marka alaab iibsanaysid oo aad alaabta maanta dukaanka soo iibsanaysid qiimaha alaabta ka soo bixisay waxaa ku dhex jiro lacag VAT ku dhex jirto sidoo kaleeto alaabta iibinaysa online waxaa loo baahan yahay isaga inuu VAT la socdo VAT-gaasna uu maaragtay maaragtay la munaasab according uu leeyahay maaragtay Soomaaliya laga dhamay in maaragtay uu isku mid yihiin VAT-ga percentage la iska qaado state-kaas kasoo qaado kale anoo joogo state oo canshuur aan lahayn soo waxaa jiro state aan canshuur la iska qaadin haddii state-kaas oo kale aad joogtid sales canshuurta la iska qaado waxaan ka wadaa sales tax la iska qaadin soo kasoo qaado waxaan joogaa state aan la iska qaadin sales tax marka alaab online ka iibsan rabo store-kaagana ay u dhahday tax intan bixi anuu ogahay inaan sales tax la iska qaadin then meeshaas dib ayaan kaaga laabanaya sababtoo adaa khaldan marka waxaa loo baahan mar walba aad maaragtay
samaysid researchka kaliya aad ka fiirisid ChatGPT aad ku qortid isoo sheeg state walbaba iyo sales tax laga qaado wuu ku soo bixinayaa maaragtay 7%, 5%, 4% inta walba laga qaado kadibna macluumaadkaas ayaa gelinaysaa Shopify-ga si qofkii maaragtay hadduu ka soo baxo state-kaas oo shipping-kiisa address-kiisa geliyo ee u soo baxayso VAT percentage-ka saxda ah ee maaragtay laga qaado state-kiisa haddii maaragtay aad bilbilow tahay oo maaragtay testing phase ku jirto oo weli aad tijaabinayso product-ka waxa ina canshuur waxaas ka walwash hadda maahan laakiin mar haddii aad rabtid in store-kaaga uu weynaaday oo lacag fiican sameynaysid oo sales-ka ay ku kala kacsan tahay markaas saan hor sheegay waxa wanaagsan in LLC afrutid oo company-ga aad register gareysid oo maaragtay aad maaragtay bangi ku xiriirisid oo yani aad noqotid LLC registered ah oo US ku dhex yaalo saasna canshuurtii aad ku bixisid qodobka kale oo rabinaan ka hadlo waxay tahay sidee ku heli kartaa supplier wanaagsan oo maaragtay si fiican kula shaqeeyo productiga si waqti la u keenayo sidoo kale to chargebacks iyo returns dhacaan ee maaragtay ku soo warcelinayo aad la hadli karto adii karto niyo alaabta noocaas oo dhuntay meel ku sheeg maxaa khaldamay uu ku soo warcelin karo sidoo kale alaabta waqti fiican uu qofka u geyn karo quality-geedu uu fiican yahay dhammaan horta waxaa loo baahan yahay maaragtay aad check gareysid supplier-ka research gooni inaad ku samaysid waa supplier-ka aad dooranaysid runaantii saan kuu sheegay hadda dad badan waxaa jira third party waxaa jiro fududeeyey maaragtay company waxaa jira fududeeyey drop shipping-ka oo alaabta ayay soo qaadeen warehouse ayay keeneen iyaga ayaa maaragtay quality check gareeyeen iyaga ayaa maaragtay hubinaya in waqti alaabta adil dhaw waxaa la geenaya alaabtan 10 days dilo dhaho in 10 days la geeyo oo aysan maaragtay aysan damarin marka waxaan ku leeyahay kuwaas isticmaali kartaa waxaa ka mid ah maaragtay auto ds waxaa ka mid ah way badan yihiin Zendrop waxaa ka mid ah DSs marka dhammaantood way wanaagsan yihiin mid xun ma laha kaliya waxaa loo baahan in adigana supplier-kaaga maaragtay aad tijaabisid hal shay aad ka soo iibsatid oo location-ka ku keeno aad aragtid bal waqtigu meesha ku sheegay u dhahan ku keenaya iyo waqti ku keenay miyay isleeyihiin inaa mar walba xal maaragtay double check gareysid supplier badan ayaa jira oo shayga iibinayo so inaad kasoo dhaabaxsatid midka ugu fiican oo aamini karto oo reviewskiisa uu badan yahay orderskiisa ay badan yihiin oo alaab badan iibiyey midda labaad oon rabo inaan ku daro waxay tahay sidee ku heli kartaa winning product waxaa la dhahaa inaa heshid productka saxda ah oo maaragtay lacag fiican ku sameeyo run ahaantii waxay u baahan tahay testing badan ay u baahan tahay tijaabis badan ay u baahan tahay marka dambe heer waxaa yeelanaysaa oo maaragtay markaa saa u aragtid winning product aad leedahay okay balkan wuu soconayaa kan ma soconayo kan wuu soconayaa kaliya waxay u baahan tahay experience khaladka ugu weyn ay sameynayaan dadka beginners waxay tahay in alaab qashin ah iyo alaab isaga uu personal uu jecel yahay uu sahay waa la iibsanaya laakiin hadii uusan ka fikirin dadka kale guud ma iibsan doonaan waxan iyo market mule waxyaabo noocaas oo kale taa mar walba waxaa fiirsaa wax qof kale uu iibinayo oo shaqeynayo maaragtay has ka dhigin qof oo maaragtay oo invent gareenaya alaab cusub yani wixii shaqeynayo oo qof kale u shaqeynayo adina ku shaqeynayo markaas soo mar walba waxaa fiirsaa research garee maaragtay competitors-ka qofka competitors-ka waxaa ka fiirin kartaa haddaa maanta aadid maaragtay Facebook oo kaleeto haddaa qortid arts library Facebook arts library wuxuu kusoo bixinayaa qaab baa jirta loo fiirin karo alaabaha meesha lagu iibiyo kaliya waxaa u baahan tahay samaysay research alaabta artina iibisoo kaleeto yaa iibinayo yaa maaragtay maanta faa'iido ka sameynayo waxyaabahaas dhan fiirsaa la rabaa lacag meeqay ka sameynayaan waa fiirin kartaa marka macluumaadkaas fiirsid oo dhan aad dhigi karto okay baalkan winning product wax soconaya waay laakiin wax maaha inaad maaragtay iskala imaatid wax oo waxyaabo maaragtay AliExpress aad ka soo qaadid aad ka soo dhigtid store-kaaga lacag aad iskaga xayeysiisid wax soconaya maaha waxa ugu muhiimsan mar walba waxay tahay waa shayga iibinayso haddii uu maaragtay uusan winning product uusan ku noqonin si kasta lacag ugu bixi si kasta maaragtay xaysiis ugu fur store-kaaga si kasta u quruxsanaado wax gadanaya ma laha marka sidee ku garan kartaa winning product-ka marka koobaad winning product waxa waaye wax maaragtay solving problem sameynayo wax xalinaya dhibaato jirto wuxuu noqon karaa wax maaragtay dumarka waaweyn maaragtay lagu talagalay wuxuu noqon karaa wax caruurta lagu talagalay wuxuu noqon karaa wax guriga lagu quruxsado waxyaabo noocaas oo kale laakiin mar walba waxaa ugu muhiimsan in aad research ku samaysid competitors-kaaga aad fiirisid waxa ma shaqeynaya marka hore ma jiraa qof kaloo lacag ka sameynaya ma jiraa store maaragtay ka faa'iiday kadib ayaa maaragtay keensan kartaa oo iibin kartaa marka guud ahaan runtii dropshipping mana adka mana fududo wuxuu u baahan yahay inaad maaragtay waqti badan gelisid inaad research badan samaysid waxyaabo badan oo isbedelayaan oo maanta suuqa mar walba uu isbedelaa in mar walba suuqa la socotid oo maaragtay update ahaatid sababtoo waxaa soo baxaya mar walba maaragtay hadda darada kaleeto Facebook ads wax weyn ayaa iska bedelay marka waxaa loo baahan mar walba inaad suuqa la socotid inaad maaragtay dhalinyarada ka hadasho dropshipping aad daawan kartid in mar walba maaragtay muuqaalada noocaas oo kale aad daawan kartid kaliya ma inaad mar dhahdid okay waa hebel korsa ka qaatay intaas ayaa ugu filan
maaragtay waan iska shaqaysanahay halaas ugu filan waxa la baahan mar walba inaa maaragtay update haatid waxyaabo badan ay isbedelaya suuqa la socotid maxaa dhacayo Chinese New Year meel soo galay suuqa Chinese mar ay jirto xiran yahay bilaha February kaleeto marka waxa la baahan mar walba inaa la socotid suuqa maxaa kacsan hadda maxaa maaragtay dhacayo sidee arska u wanaagsan oo shaqeynaya noocee waaye maxaa la sameeynaya waxyaabo noocaas oo kaleeto inaa maaragtay aad ku samaysid research badan so ma aha wax sahlan mana ahan wax fudud waxa waa kaliya waxa adii kugu xiran iyo dadaalkaaga iyo maaragtay baahida u qabto inta la eg tahay muuqaalka waxaan inuu dheer yahay haddaa ka faa'iiday oo maaragtay wax badan ka ogaatay waxaad siin kartaa like subscribe and share sidoo kale channelka waxaan kusoo share garan doonaa waxyaabo badan oo la xiriira dropshippingka e-commerce iyo muuqaalada noocaas oo kaleeta ah mahadsanid